xubno ka socday midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo uu horkacay wakiilka ururka maqso ee dalka Uganda Cabdulqaadir Cumar Cabdulle Fiidka ayaa booqasho ku tagay college-ka weyn ee YMCA oo ay wax ka bartaan arday Soomaaliyeed. Macahadkan oo ku yaala degmada Wakiiso ee gobolka dhexe ee Uganda ayaa ardayda Soomaaliyeed intooda badan waxa ay ka bartaan luqadda Ingiriiska. Wakiilka maqso ayaa ardayda kala sheekaystay xaaladahooda iyo caqabadaha hortaagan isagoona ardayda kula dardaarmay in dadaalkooda ay sii laba jibaaraan. waa kuwan qaar ka mid ah ardayda ka qayb gashay kulanka oo ka hadlay dareenkooda ku aadan booqashada ugu yimid wakiilka maqso ee dalka Uganda. gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawo YMCA Comprehensive Institute Buwambo Campus. waxaan aad ugu faraxsanahay booqashadaada. runtii tani waxa marqaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sida uu dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogaan. taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta nooga imaaday adigoo jooga meel intaas oo kiiloomitir naga jirto ama nooga fog aan noogu imaaday inaan ogaato xogteena sida uu noolnahay waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulano halkan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardayda Soomaaliyeed ee dhigata YMCA. runtii waxay muujiyeen isku duubnaan iyo hadaf. salaamiya markii koowaad ardayda Soomaaliyeed ee saldhigano oo xarunta saldhig wax isla barano maadaama ay yihiin ardayda Soomaaliyeed waxaan marka xigtan salaamaya gudoomiyaha ardayda qaranada midoobay oo madhow la soo magacaabay walaalkeena Cabdulqaadir Fiidka. waxaan kaloo salaamaya gudoomiyaha Yaxya Cabdullaahi Bariise oo kamid ah gudoomiyaha ardayda. waxaan leeyahay kullee yani alxamdulillah ardayda meesha ka bartaan kamid ahay. waxaan leeyahay walaalihii Soomaaliyeed waxaan leenahay marka qurbaa joogno aadan isku jecelnahay wadankeena markaan ku laabanana aadan isku jeclaano. waxaan kaloo mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed oo naga warqabto oo noohay maadaama wadanka ka baranay noo soo magacaawday qof xaaladeena iyo dhibaatadeena iyo waxa meesha nagu hayaan u sheegan karno. marka waan u mahadcelinayaa. waxaan maanta soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdulqaadir Cumar Cabdulle Fiidka oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed. waxaan leenahay aad u mahadsan tahay maadaama aad nagu soo booqatay YMCA ka warqabida aan naga warqabtayna waan kaaga mahadcelinaynaa. runtii taas waa arrin lagu farxo waxayna dhiirigelin u tahay ardayda kale ee Soomaaliyeed. runtii mana hilmaami doono waxaan mar kale ku dhahaynaa soo dhawaaw. ugu dambeyntii wakiilka maqso ee dalka Uganda Cabdulqaadir Cumar Cabdulle Fiidka ayaa ardayda la hadlay isagoona ballan qaaday inay bilaabi doonaan tirakoobka ardayda wax ka barata dalka Uganda kulana dardaarmay inay ka fogaadaan qabyaaladda isla markaana isku duubnay ay muujiyaan. haddii sidoo kale inta qorshaha waxyaabaha noogu jiro waxaa kamid ah inaynu sameeyno tirakoob rasmiya oo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkan Uganda taasoo iyada naftirkeeda sahli karta waqtiga aynu doonayno in doorasho cod iyo qof aynu gaarsiino madaxweynaheena ama gudoomiyaheena ugu sareeya ee midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed markaynu rabno inaynu doonano insha Allah taana waynu ka shaqeyn doonaa. dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxa kamid ah qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid. runtii waa wax laga wanaagsan yahay insha Allah waxaan isku dayaynaa in sida ugu macquulsan ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arintaasi looga wacyigelin lahaa. waa dareemi kartaa markaad dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku nacbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan waxyaabo badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxaa la soconaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaabo kale. waxaynu ka shaqeynaynaa haddii Allah awood laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbedel wanaagsan aynu ka sameeyno. markaad la tacaamulaysaan safaaradda waad rabtaan inaad aadaan high commissionka insha Allah haddii Allah awood laga helo. Shaafici Usmaan Cali codka bariga Afrika magaalada Kampala.